ka imaanaya qaybo ka mid ah gobolka Gado ayaa ku waramaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya inuu ka dhacay Saakay xuduudda labada dal ee Balad Xaawi sidoo kale Mandera. Goobjoogayaal ayaa sheegaya inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay, waxaana goordhow istaagay dagaalka oo bilowday saacado ka hor. waxaana dagaalku uu ahaa mid culus isla markaana labada dhinac ay isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan, khaasatan hubka ay haysteen. arrintan ayaa daba joogta afduub iyo sidoo kale dil foolxun oo ciidamada Kenya maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen gudaha Soomaaliya, waxaana Saakay markii ugu horeysay dhaqdhaqaaq sameeyay ciidamada difaaca Soomaaliya oo maalmahan dhanba dowladda Kenya ka dalbanayay inay joojiso dhibaatooyinka ay ku hayso shacabka ku nool gobolka Gado. Shalay waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo dadka shacabka ku nool magaaladaasi kuwaasoo ka dhiidhiyay dad shacab ah oo ay xasuuqeen ciidamada Kenya. hase haatee dowladda Kenya wax faahfaahin ah ma aysan ka bixin falkaasi dhacay. ciidanka dowladda Soomaaliya ee jooga gobolka Gado ayaa xalay aad u sameeyay dhaqdhaqaaq xoogan, waxaana dhammaan loo yeeray ciidamada xerooyinka joogay kuwaasoo lagu amray inay u diyaar garoobaan dagaal. waxaana dagaalka Saaka ka dhacay duleedka magaalada Balad Xaawi ee gobolka Gado ee u dhexeeyay ciidamada Kenya iyo sidoo kale kuwa Soomaaliya uu ku soo aaday xilli shacabka gobolka Gado ay dalbanayeen in la iska dhiciyo ciidamada Kenya. lama oga saraakiisha sidoo kale ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya khasaaraha soo gaaray, sidoo kale lama oga khasaaraha gaaray ciidanka Kenya. hase haatee saraakiisha ciidamada dowladda ayaa lagu wadaa in warbaahinta ay la hadlaan. shacabka ku nool gobolka Gado qaarkood ayaa bilaabay in hubka ay qaataan si ay ula dagaalamaan ciidanka Kenya una gacan siiyaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. hase haatee shacabka degmada Balad Xaawi ayaa aroornimadii hore Saaka arkayay gaadiidka kuwa dagaalka ciidanka dowladda oo hore magaaladan loogu arkayn kuwaasoo dhaqdhaqaaq ka sameynaya magaalada. ciidanka dowladda ayaa u muuqday in iska caabinta ay sameeyeen ay ahayd mid xoogan, khaasatan dagaalka ay la galeen ciidanka dowladda waddankaasi Kenya. shacabka Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyay dagaalka ciidanka Kenya iyo kuwa dowladda u dhexeeya, waxaana ay garab istaageen ciidankooda Soomaaliya. wararka ka imaanaya qaybo ka mid ah gobolka Gado ayaa ku waramaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya inuu ka dhacay Saakay xuduudda labada dal ee Balad Xaawi sidoo kale Mandera. goobjoogayaal ayaa sheegaya inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay, waxaana goordhow istaagay dagaalka oo bilowday saacado ka hor. waxaana dagaalku uu ahaa mid culus isla markaana labada dhinac ay isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan, khaasatan hubka ay haysteen. arrintan ayaa daba joogta afduub iyo sidoo kale dil foolxun oo ciidamada Kenya maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen gudaha Soomaaliya, waxaana Saakay markii ugu horeysay dhaqdhaqaaq sameeyay ciidamada difaaca Soomaaliya oo maalmahan dhanba dowladda Kenya ka dalbanayay inay joojiso dhibaatooyinka ay ku hayso shacabka ku nool gobolka Gado. shalay waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo dadka shacabka ku nool magaaladaasi kuwaasoo ka dhiidhiyay dad shacab ah oo ay xasuuqeen ciidamada Kenya. hase haatee dowladda Kenya wax faahfaahin ah ma aysan ka bixin falkaasi dhacay. ciidanka dowladda Soomaaliya ee jooga gobolka Gado ayaa xalay aad u sameeyay dhaqdhaqaaq xoogan, waxaana dhammaan loo yeeray ciidamada xerooyinka joogay kuwaasoo lagu amray inay u diyaar garoobaan dagaal. waxaana dagaalka Saaka ka dhacay duleedka magaalada Balad Xaawi ee gobolka Gado ee u dhexeeyay ciidamada Kenya iyo sidoo kale kuwa Soomaaliya uu ku soo aaday xilli shacabka gobolka Gado ay dalbanayeen in la iska dhiciyo ciidamada Kenya. lama oga saraakiisha sidoo kale ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya khasaaraha soo gaaray, sidoo kale lama oga khasaaraha gaaray ciidanka Kenya. hase haatee saraakiisha ciidamada dowladda ayaa lagu wadaa in warbaahinta ay la hadlaan. shacabka ku nool gobolka Gado qaarkood ayaa bilaabay in hubka ay qaataan si ay ula dagaalamaan ciidanka Kenya una gacan siiyaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. hase haatee shacabka degmada Balad Xaawi ayaa aroornimadii hore Saaka arkayay gaadiidka kuwa dagaalka ciidanka dowladda oo hore magaaladan loogu arkayn kuwaasoo dhaqdhaqaaq ka sameynaya magaalada. ciidanka dowladda ayaa u muuqday in iska caabinta ay sameeyeen ay ahayd mid xoogan, khaasatan dagaalka ay la galeen ciidanka dowladda waddankaasi Kenya. shacabka Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyay dagaalka ciidanka Kenya iyo kuwa dowladda u dhexeeya, waxaana ay garab istaageen ciidankooda Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya qaybo ka mid ah gobolka Gado ayaa ku waramaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya inuu ka dhacay Saakay, xuduudda labada dal ee Balad Xaawi sidoo kale Mandera. Goobjoogayaal ayaa sheegaya inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay, waxaana goordhow istaagay dagaalka oo bilowday saacado ka hor. waxaana dagaalku uu ahaa mid culus islamarkaana labada dhinac ay isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan, khaasatan hubka ay haysteen. Arrintan ayaa daba joogta afduub iyo sidoo kale dil foolxun oo ciidamada Kenya maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen gudaha Soomaaliya, waxaana Saakay markii ugu horreysay dhaqdhaqaaq sameeyay ciidamada difaaca Soomaaliya oo maalmahan dhanba dowladda Kenya ka dalbanayay inay joojiso dhibaatooyinka ay ku hayso shacabka ku nool gobolka Gado. Shalay waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo dadka shacabka ku nool magaaladaasi, kuwaasoo ka dhiidhiyay dad shacab ah oo ay xasuuqeen ciidamada Kenya. hase haatee dowladda Kenya wax faahfaahin ah ma aysan ka bixin falkaasi dhacay. Ciidanka dowladda Soomaaliya ee jooga gobolka Gado ayaa xalay aad u sameeyay dhaqdhaqaaq xoogan, waxaana dhammaan loo yeeray ciidamada xerooyinka joogay kuwaasoo lagu amray inay u diyaar garoobaan dagaal. waxaana dagaalka Saaka ka dhacay duleedka magaalada Balad Xaawi ee gobolka Gado ee u dhexeeyay ciidamada Kenya iyo sidoo kale kuwa Soomaaliya uu ku soo aaday xilli shacabka gobolka Gado ay dalbanayeen in la iska dhiciyo ciidamada Kenya. Lama oga saraakiisha iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya khasaaraha soo gaaray, sidoo kale lama oga khasaaraha gaaray ciidanka Kenya. hase haatee saraakiisha ciidamada dowladda ayaa lagu wadaa in warbaahinta ay la hadlaan. Shacabka ku nool gobolka Gado qaarkood ayaa bilaabay in hubka ay qaataan si ay ula dagaalamaan ciidanka Kenya una gacan siiyaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. hase haatee shacabka degmada Balad Xaawi ayaa aroornimadii hore Saaka arkayay gaadiidka kuwa dagaalka ciidanka dowladda oo hore magaaladan loogu arkayn, kuwaasoo dhaqdhaqaaq ka sameynaya magaalada. ciidanka dowladda ayaa u muuqday in iska caabinta ay sameeyeen ay ahayd mid xoogan, khaasatan dagaalka ay la galeen ciidanka dowladda waddankaasi Kenya. Shacabka Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyay dagaalka ciidanka Kenya iyo kuwa dowladda u dhexeeya, waxaana ay garab istaageen ciidankooda Soomaaliya. Wararka ka imaanaya qaybo ka mid ah gobolka Gado ayaa ku waramaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya inuu ka dhacay Saakay, xuduudda labada dal ee Balad Xaawi sidoo kale Mandera. Goobjoogayaal ayaa sheegaya inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay, waxaana goordhow istaagay dagaalka oo bilowday saacado ka hor. waxaana dagaalku uu ahaa mid culus islamarkaana labada dhinac ay isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan, khaasatan hubka ay haysteen. Arrintan ayaa daba joogta afduub iyo sidoo kale dil foolxun oo ciidamada Kenya maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen gudaha Soomaaliya, waxaana Saakay markii ugu horreysay dhaqdhaqaaq sameeyay ciidamada difaaca Soomaaliya oo maalmahan dhanba dowladda Kenya ka dalbanayay inay joojiso dhibaatooyinka ay ku hayso shacabka ku nool gobolka Gado. Shalay waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo dadka shacabka ku nool magaaladaasi, kuwaasoo ka dhiidhiyay dad shacab ah oo ay xasuuqeen ciidamada Kenya. hase haatee dowladda Kenya wax faahfaahin ah ma aysan ka bixin falkaasi dhacay. Ciidanka dowladda Soomaaliya ee jooga gobolka Gado ayaa xalay aad u sameeyay dhaqdhaqaaq xoogan, waxaana dhammaan loo yeeray ciidamada xerooyinka joogay kuwaasoo lagu amray inay u diyaar garoobaan dagaal. waxaana dagaalka Saaka ka dhacay duleedka magaalada Balad Xaawi ee gobolka Gado ee u dhexeeyay ciidamada Kenya iyo sidoo kale kuwa Soomaaliya uu ku soo aaday xilli shacabka gobolka Gado ay dalbanayeen in la iska dhiciyo ciidamada Kenya. Lama oga saraakiisha iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya khasaaraha soo gaaray, sidoo kale lama oga khasaaraha gaaray ciidanka Kenya. hase haatee saraakiisha ciidamada dowladda ayaa lagu wadaa in warbaahinta ay la hadlaan. Shacabka ku nool gobolka Gado qaarkood ayaa bilaabay in hubka ay qaataan si ay ula dagaalamaan ciidanka Kenya una gacan siiyaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. hase haatee shacabka degmada Balad Xaawi ayaa aroornimadii hore Saaka arkayay gaadiidka kuwa dagaalka ciidanka dowladda oo hore magaaladan loogu arkayn, kuwaasoo dhaqdhaqaaq ka sameynaya magaalada. ciidanka dowladda ayaa u muuqday in iska caabinta ay sameeyeen ay ahayd mid xoogan, khaasatan dagaalka ay la galeen ciidanka dowladda waddankaasi Kenya. Shacabka Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyay dagaalka ciidanka Kenya iyo kuwa dowladda u dhexeeya, waxaana ay garab istaageen ciidankooda Soomaaliya.
wararka ka imaanaya qaybo ka mid ah gobolka Gado ayaa ku waramaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya inuu ka dhacay Saakay xuduudda labada dal ee Balad Xaawi sidoo kale Mandera. goobjoogayaal ayaa sheegaya inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay, waxaana goordhow istaagay dagaalka oo bilowday saacado ka hor. waxaana dagaalku uu ahaa mid culus isla markaana labada dhinac ay isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan, khaasatan hubka ay haysteen. arrintan ayaa daba joogta afduub iyo sidoo kale dil foolxun oo ciidamada Kenya maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen gudaha Soomaaliya, waxaana Saakay markii ugu horeysay dhaqdhaqaaq sameeyay ciidamada difaaca Soomaaliya oo maalmahan dhanba dowladda Kenya ka dalbanayay inay joojiso dhibaatooyinka ay ku hayso shacabka ku nool gobolka Gado. Shalay waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo dadka shacabka ku nool magaaladaasi, kuwaasoo ka dhiidhiyay dad shacab ah oo ay xasuuqeen ciidamada Kenya. hase haatee dowladda Kenya wax faahfaahin ah ma aysan ka bixin falkaasi dhacay. ciidanka dowladda Soomaaliya ee jooga gobolka Gado ayaa xalay aad u sameeyay dhaqdhaqaaq xoogan, waxaana dhammaan loo yeeray ciidamada xerooyinka joogay kuwaasoo lagu amray inay u diyaar garoobaan dagaal. waxaana dagaalka Saaka ka dhacay duleedka magaalada Balad Xaawi ee gobolka Gado ee u dhexeeyay ciidamada Kenya iyo sidoo kale kuwa Soomaaliya uu ku soo aaday xilli shacabka gobolka Gado ay dalbanayeen in la iska dhiciyo ciidamada Kenya. lama oga saraakiisha iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya khasaaraha soo gaaray, sidoo kale lama oga khasaaraha gaaray ciidanka Kenya. hase haatee saraakiisha ciidamada dowladda ayaa lagu wadaa in warbaahinta ay la hadlaan. shacabka ku nool gobolka Gado qaarkood ayaa bilaabay in hubka ay qaataan si ay ula dagaalamaan ciidanka Kenya una gacan siiyaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. hase haatee shacabka degmada Balad Xaawi ayaa aroornimadii hore Saaka arkayay gaadiidka kuwa dagaalka ciidanka dowladda oo hore magaaladan loogu arkayn, kuwaasoo dhaqdhaqaaq ka sameynaya magaalada. ciidanka dowladda ayaa u muuqday in iska caabinta ay sameeyeen ay ahayd mid xoogan, khaasatan dagaalka ay la galeen ciidanka dowladda waddankaasi Kenya. shacabka Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyay dagaalka ciidanka Kenya iyo kuwa dowladda u dhaxeeya, waxaana ay garab istaageen ciidankooda